Wararka ka imaanaya degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe waxa ay sheegayaan in halkaasi duqeymo xooggan laga fuliyay khasaare xoogganna lagu gaarsiiyay sida ay sheegtay dowladda federaalk Soomaaliya. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ee halkaasi ku sugan Aadan Yabaal oo ah degmo istiraatiiji ah oo Al-Shabaab ay dib u qabsadeen ayaa waxaa la soo warinayaa in diyaaradaha saaxiibada beesha caalamka ah duqeymo xooggan ay ka fuliyeen, waxaana sidoo la sheegay dhulka lala simay laba saldhig oo ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku lahaayeen degmadaasi. Wararkii ugu dambeeyay oo halkaasi ka imaanaya waxa ay sheegayaan in xaaladda degmada Aadan Yabaal ay maanta oo Jimco ah ay tahay mid qasan kadib duqeymo xooggan oo halkaasi ay ka fulisay dowladda federaalk ah ee Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in khasaare xooggan Al-Shabaab la gaarsiiyay oo laba saldhig oo Al-Shabaab ahaa saldhigyadii ugu waaweynaa ee degmada Aadan Yabaal ay ka sameysteen tan iyo markii ay dib u qabsadeen la gaarsiiyay burburkii ugu xoogganaa. Al-Shabaab ayaa tan iyo markii Aadan Yabaal ay la wareegeen wax duqeymo ahna laga fulin gudaha degmadaasi, balse dowladda Soomaaliya ayaa markeedii ugu horeysay duqeymo xooggan ka fulisay degmada Aadan Yabaal oo Al-Shabaab gacanta ay ku hayaan. Wararkii ugu dambeeyay ee halkaasi ka imaanayna waxa ay sheegayaan in xaaladda guud ee degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ay tahay mid kacsan. Dowladda Soomaaliya ma aysan faahfaahin rasmi ah kama aysan bixinin duqeymaha ay ku beegsatay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe iyo haddii dad shacab ah ay gaareen khasaare culus, balse dowladda Soomaaliya ayaa warkeeda ku koobtay in duqeymo halkaasi ay ka fulisay saldhigyo Al-Shabaab ay ku lahaayeen halkaasina ay gaarsiisay burbur aad u xooggan. Xaaladda guud ee degmadaasi ayaa hadda ah mid cakiran, iyadoo tan iyo markii Al-Shabaab ay la wareegeen degmadaasi gacan ku haynteeda amarka ugu badan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay bixinayeen, dadka shacabka ahna ay sheegayeen inay dhibaato weyn halkaasi ay ka jirto. Al-Shabaab ayaa degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe waxay dib u qabsadeen kadib maalmo xooggan ama maalin dagaal socday oo halkaasi ka dhacay. Halkan kusoo biirsi aad u hesho xogihii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay.